salaan dabadeed waxaa weeye sharaf weyn iyo runtii ay inoo tahay inaan maanta halkan ku soo dhaweyno wasiir dowlaha cusub wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Cabdulqaadir oo dhawaan u magacaabay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre runtii soo dhawow mudane wasiir aad ayaan ku soo dhaweynaynaa agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waaxyaha iyo dhammaan la taliyayaasha wasaaraddu waxay runtii waa ku soo dhaweynayaan iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda oo intooda badan hadda fasax ku maqan maadaama COVID-19 uu dalka ka dhacay waxaa kaloo runtii rabaa inaan halkan ka xuso oo maanta aan jeclaalayn inuu halkan nala joogo wasiir dowlihii hore wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane Daahir Cabdulaahi oo runtii aan jeclayn maanta inaan ku sharafno inuu halkan nala joogo laakiin COVID-19 dartiis nooga xayirmay dalka Ingiriiska runtii waxaan rabaa inaan warbixin yaroo kooban wasiirro idinka siiyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha gaar ahaan wasaaraddan oo sida la sheegay u xil saaran runtii muhiimad ballaaran dalkeenna horumarkiisa u leh marka laga reebo wasaaradda dalkeenna markii burburku dhacay sidaad la socotaan wuxuu ku tiirsanaa marka laga reebo hay-adaha caalamiga iyo gargaarka muddadii dowlad la'aantu ay jirtay wuxuu ku tiirsanaa ganacsiga gaar ahaan dadaalada ganacsatadu ay sameeyeen sababtoo ah ganacsigu marba ma noqon dalka gudihiisa si xooluhu mar walba uga socday dagaaladu runtii way saameeyeen laakiin dadka Soomaaliyeed oo leh dad hal abuur leh runtii waxay ku dadaaleen inay meesha ugu hooseysa ay ka soo bilaabaan maantana wuxuu marayaa marxalad runtii fiican dhinac walba ama sector walba waxaana soo gaarsiiyay ganacsatada waliba xilli aysan jirin wasaarado ama adeegyadii dawladdu ay bixin jirtay ay dalka ay ka maqnaayeen marka wasaaraddu iyadoo halka ka duulaysa waa wasaarad runtii ahmiyad ballaaran dalka u leh gaar ahaan kobcinta dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo warshadeynta sida la socotaan berisamaadkii wasaaraddaanu hadda waxaa weeye waa laba wasaaradood oo la isku daray waxay ahaan jirtay wasaaraddii ganacsiga oo gooni u taagan iyo wasaaraddii warshadaha oo dalkeena warshadaha ugu ballaaran warshado ballaaran ayuu lahaa muxuu ahaa runtii waa wasaaradda aan dhihi karno waa wasaaradaha ugu hanti badan oo xagga maxaa la dhihi jiraa hantida maguurtada ah dalka maanta uu leeyahay runtii halkan waxaa degan 3 wasaaradood oo wasaaraddu ay ka mid tahay oo ay ka mid yihiin wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqa ay hoy u tahay waana xaruntii wasaaradda ganacsiga waana marka laga reebo muxuu ahaa wasaaradda warshaduna waxay ku tiil dhinac kale sida la socotaan runtii ahmiyadaas ballaaran ay leedahay darteed ayaan waxaan wadnay dadaallo fara badan ayaa wasaaradda ka socday oo dib loogu kobcinayo oo dadaaladaas waqti dheer ay soo bilaabmeen laakiin intooda badan waxaa la qabtay markii hadda uu madaxweynaha noqday mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ra'iisul wasaarena uu noqday mudane Xasan Cali Khayre dadaallo badan runtii la sameeyay waxaad moodaa waxqabadka wasaaraddu inta badan 2018 iyo 19 waqtiyada ugu dambeeyay muddadii halka sano ahayd oo hadda anigu aan joogana wax badan ayaa sii qabsoomay oo muxuu ahaa hadday noqon lahayd xaq shuruuc oo wasaaraddu ay u xil saaran tahay sharciyadii ganacsiga iyo kuwii maalgashiga intaba iyo siyaasadihii ganacsiga intaba iyo hadday noqon lahayd warshadeynta dalka iyo dhiirigelinta maalgashiga inta badan wax badan laga qabtay waxaan xusi karnaa sanadkan gudihiisa waxaa la hirgeliyay sharcigii shirkadaha oo aan hore u jirin ayaa baarlamaankuna ansixiyay madaxweynuhuna uu saxiixay labada aqal ka bacdina hadda waxaan sugaynaa sharcigaas inaan ka miro dhalino oo noqdo
sharci lagu shaqeeya ama implementationkiisa ama tanfiidkiisii iyo meelmarintiisii ayaan ku howlanahay. waxaa kaloo la ansixiyay sharciga tayadhowrka Soomaaliyeed iyo hay'adii tayadhowrka oo ayagana rabno in wadankan uu yeesho tayadhowr maadaama tayadhowr uusan lahayn muddo intii burburku uu jiray horena aysan u jirin hay'ad tayadhowr. runtii hay'adaas oo rajeynayno marka la dhiso oo dhismaheeda inay wax badan ay ka tari doonto muxuu ahaa caafimaadka iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba isla markaana ay sahli doonto dalkeenu wax soo saarkiisa in dibadda loo dhoofiyo waxyaabo badan oo maanta dalka la keeno oo muxuu ahaa dalka culays ku ah oo dhinac walbaba ama daawo haday noqoleed ama cunto haday noqoleed ama wax soo saar dhamaantiisba in lala socdo oo muxuu ahaa ay la jaan qaadaan muxuu ahaa standardka caalamiga intaba. waxaan kaloo runtii aan hadda waxay xiriir la leedahay runtii wasaarado badan oo line ministers ay la wada shaqaysaa oo wasaaradaha dhaqaalaha oo shirka dhaqaalaha uu kamid yahay shuruucdii aan waxaan wadnaa siyaasadihii waxaasoo dhan howlahaasoo dhan waxa weeye donors hadda la shaqeeya oo muxuu ahaa dadaal badan markaan sameynay oo muxuu ahaa ilaa hadda waxaan la shaqeynaa World Bank waxaan la shaqeynaa UNIDO ayaan ayadana maxaa la jiray shaqo dhow la leenahay waxaan rajeynaynaa waxaan coordinate garaynaa hay'adaha ama wasaaradaha wax soo saarka sidii dalkii dib loogu warshadeyn lahaa wax soo saarkii loo kordhin lahaa sababtoo ah dhoof ma jiraayo haddii aan wax soo saarkii la kordhin. marka meesha aan maanta joogno haddii ay alxamdulillah sidaan noogu sii socoto waxaan rajeynaynaa in dalkeenu mustaqbalka uu noqon doono dal warshado leh dal wax soo saar leh taasna inaan u bedelno hadda masiibadii hadda dhacday oo COVID-19 ayaa waxayna baraysaa caalamku wixii globalization la dhihi jiray ama maxaa la jiray inay meesha ka sii baxeen oo muxuu ahaa adduunku hadduu kala xirmo dawlad walba ama dad walba waxay ku tashanayaan waxa ay haystaan marka inuu fursad inoo noqdo fursad dadka Soomaaliyeed ka faa'iideystaan kheyraadka diina Ilaahay ku manaystana ay ku soo saartaan. marka aadan ku soo dhaweynaynaa ugu dambeyn runtii shaqaalaha iyo dhammaan waa ku farxeen markii muxuu ahaa wasiir dawlaha noqotay sababtoo ah ruux walba siyaasadda ku jiray oo la yaqiin oo muxuu ahaa gobol joogay oo maamulaya muxuu ahaa baarlamaan. marka waxaan ku rajeynaynaa guul waxaan ku rajeynaynaa horumar wasaaraduna waa wasaaradaada hadda wixii ka dambeeya inaad shaqada bilaabato dadka halkan joogo dhammaantood ayagoo leh muxuu ahaa fasax loo shaqaalihii dawladda la fasaxay ayay haddana si volunteer ayay halkan ka wada shaqeeyaan. annagu maalinna waxa weeye 3 bilood ee lagu jiray COVID-19 ka wasiir ahaan iyo shaqaale ahaan intuba halkaas ayaan taagnay waa shaqeynaynay ama guri ha lagu shaqeeyo ama halkan ha lagu shaqeeyo laakiin shaqadu marna ma istaagin howlihii socday waxa weeye haday shuruuc noqon lahayd haday noqon lahayd maxaa la jiray alxamdulillah heshiisyo caalamiya haday noqon lahayd alxamdulillah maamul intuba waxa weeye si xawli ah ayay u socdaan. taasna waxaad ka dareemi doontaa markii aad shaqadaada guda gasho inta sharciyo maanta aan rabno in loo meel mariyo inta howlood aan rabno maanta inaan alxamdulillah dardar gelino inta wax badan runtii wasaaraddu hadda gacanta ay ku haysaa oo muxuu ahaa uu ka mid yahay sharcigii sumadaha oo ka mid yahay heshiisyo aan dawladda la soo galnay oo ay ka mid tahay runtii inaan heshiisyadii maxaa la jiray caalamiga ah kii commerce aan geeyna baarlamaanka kii African Continental Free Trade ama muxuu ahaa aaga ganacsiga Afrikana aan geeyno golaha wasiirada iyo kuwa kale oo muxuu ahaa aad u badan oo policy leh oo siyaasad leh oo ganacsi leh. runtii waxaan rabaa inaan halkan ka xuso inaan wada shaqayn dawlad leenahay rugta ganacsiga oo ayaduna ganacsatada Soomaaliyeed mas'uulka iyo ganacsatada guud ahaan dhamaantood. wasaaradan waxay mas'uul ka tahay sidaad ogtahay diiwaangelinta iyo laysanada muxuu ahaa dalka laga qaato xagga ganacsiga qaybta ganacsiguna waa qaybta runtii waxaan rabnaa inaan isbedel ku sameeyno oo hadda qaab casriya ay u shaqayso oo waxaan la yiraahdo online ama maxaa la jiray sistemada caalamiga oo qofku asagoo jooga meel walba uu ka daabacan karo wasaaradina uu iska diiwaan gali karo. taasina waxay ku socotaa tiimka halkan jooga qaar kamid ah oo Cabdi Daahir kamid ah ayaa wada
iyo agaasimihiina maanta waa xayreen umalena marka tiimkuna caadi ayuu shaqeynaa shaqadooda caadi u wataan maadaama ay mas'uul ka yihiin macal shaqaalahoodu si toos ay u shaqeeyaan marka waxaan rabnaa oo kale meel ganacsiga lagu fududeeyo one stop shop in dhawaan ayadana in la sameeyo oo muxuu ahaa oo qofku uu ka heli karo ruuxa ama qofka Soomaaliga ama wadaniga ama kan dibadda intaba ay ka heli karaan all the maxal jiray waxay uga baahnaayeen wadankan markay rabaan inay maal gashadaan haddii gudaha noqoleed haddii dibadda noqoleed intaba marka dadaal badan socdo waxaan rabnaa inaan dib u soo celino haddii resource aan u helno wasaaradda ganacsiga warshadaha oo ayadana dib gacanta dawladda loogu soo celiyo iyo meelo badan oo muxuu ahaa kamid ah muxuu ahaa hantida dawladdu ay lahayd oo inta badan maxal jira noo diiwaan gashan oo aan gacanta ku hayno marka runtii waa shaqo aad u ballaaran waa shaqo runtii u baahan xirfad iyo muxuu ahaa iyo adkaysi iyo aqoon la taliyaashana aadan u amaana iyo agaasimayaasha waaxyaha sida hagar la'aanta ay u shaqeeyaan waxa kale oo hadda socda sharcigii maalgashiga shisheeyaha oo aan rabno inaan dib u eegis ku sameeyno maadaama runtii ay ka soo baxeen daldaloolo fara badan oo review lagu sameeyo iyo in la abuuro hay'adii dhiirigelinta maalgashiga oo aan rabno in dalka shisheeyaha oo aan rabno dalkan cidda maal gashanaysa inay hay'ad ka mas'uula inay maxal jiray ay yeelato oo madax bannaan sida hay'adaha tayadhowrka iyo hay'adaha la midka ah marka waa runtii waa dadaalo aad u badan oo qaarkood u gudbi doonaan waqtiyada dambe u gudbi doonaan laakiin aan rabno inaan foundation ka u dhigno oo aan gogoldhig aan u sameeyno marka wasaaraddu laakiin waxaad moodaa alxamdulillah sida la socota adigu baad qirtay inay soo kacday oo ay soo kobocday oo maanta shacabka Soomaaliyeed ay indhaha ku hayaan waxa ay qabanayso runtii aad ayaan u soo dhaweynaynaa adiga iyo marti sharafta kale intaas waa brief ninka soo hadalka aan badiyay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow biidnillaahi alkariim waan jeclaa in intaan ka badan iyadoo shaqaaluhu joogo sida aniga bal laygu maamuusay oo in maxal jiray inaan ku maamuusno laakiin waxa weeye intaan ayaa tabartu dhaafi weysay alxamdulillah waan ku soo dhaweynaynaa insha Allah waana xiriir hoose iyo wada shaqeyn iyo intabana waa yeelan doonaa biidnillaahi alkariim marka waxaan ku leenahay shaqada ku soo dhawow hay ismartiyeen wasaaraddu waa wasaaradaadii maanta wixii ka dambeeya waxa weeye shaqadaadii waa ku furan tahay inaad bilaabato aadna wasiir aadan kaga mahad celinaynaa sharaftaan ugu sharaftay inaan nagala soo qayb gasho xafladan kooban aad ayaan kugu mahad celinaynaa maadaama xafiiska ra'iisul wasaaraha ka mas'uul tahay waxaan kaloo mahad celinaynaa mas'uuliyiinta ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo saaxiibada kale oo nagu sharfay in ayaguna xafladan nagala soo qayb galaan dhammaantiin aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh